Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada channelka Roman Media. Magaciiguna waa Cabaas Mustafa. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa khilaafka dhex taagan Armenia iyo Azerbaijan oo soo gabagaboobay. Intaanan muuqaalka u guda gelin like saar videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. Dagaalka bilowday 27kii bishii sagaalaad ee u dhaxeeyay wadamada Azerbaijan iyo Armenia ayaa soo gabagaboobay. Heshiiska oo garwadeen ka ahaa Ruushka ayaa dhexmaray labadaas dal. Heshiiskaas oo ra'iisul wasaaraha Armenia ku tilmaamay heshiis xanuun badan. Heshiisku wuxuu si faahfaahsan u cadeynayaa in laga adkaaday Armenia oo Azerbaijan guul ka keenay dagaal ay ku doonaysay inay ku xureyso dhulkeedii laga qabsaday 30 sano ka hor. Azerbaijan waxay u dagaalamaysay inay xureyso dhul ay qaadatay Armenia 30 sano ka hor oo ahaa maamul lagu magacaabi jiray Qarabakh iyo dhul asiga ka sii balaaran oo ku hareereysnaa maamulkaas oo ay qaadatay Armenia. Dagaalka intuu socday waxay Azerbaijan qabsatay 5 magaalo waaweyn, 4 magaalo yaryar iyo 240 tuulo. Sidoo kale waxay qabsatay dhammaan dhulkii xigay xuduudda Iran. 10kii bisha ay Azerbaijan qabsatay magaalada labaad ee ugu weyn Qarabakh ee la yiraahdo Shusha, taasoo sababtay in heshiisku uu dhaco. Heshiiska waxaa ka mid ah in Armenia iskaga baxdo ilaa 7 magaalo kale oo loo qabtay ilaa 1 bisha soo socoto inay iskaga baxdo waa ayna ogolaatay. Taasi waxay ka sii dhigaysaa in Azerbaijan ay qabsatay dhammaan dhulkii ka maqnaa, inta dhimanna ay gacanta soo galayso 15 bishan ilaa 1 bisha soo socoto. Dunida muddo badan bay Armenia ku baryeysay iskaga bax dhulka Azerbaijan ee sharci darrada aad ku haysato. Azerbaijan waa dal qani ku ah shidaalka oo wuxuu shidaalka siiyaa Turkiga oo Isir iyo qaraabo yihiin, ahaana dalka taakuladii ugu badnaa siiyay. Dagaalka waxaa kala safnaa laba dal, Israa'iil iyo Turkiga oo Azerbaijan la safnaa oo badan ka caawinayay, iyo Iran, Ruushka, Khaliijka, Hindiya iyo dalal kale oo Armenia la safnaa. Ruushka si hoose ayuu u taageerayay Armenia, marnaba sida Turkiga oo kale ma cadeen la shafashada Armenia, sababtoo ah Azerbaijan ayuu xiriir fiican la lahaa oo ganacsi kala dhexeeya. Israa'iil oo aan mandaqad dhicin sababta ay Azerbaijan u taageerta ayaa ah in xiriir ganacsi kala dhexeeyo iyo mid difaac. Dabaaldega ayaa ka socdo guud ahaan Azerbaijan, halka Armenia mudaharaadyo ka socdo oo gabi ahaanba u dhuuntay ra'iisul wasaaraha Armenia. Madaxweynaha dalkan uu yiri waxba kama ogeen heshiiska. Sidoo kale dadka careysan baa xafiisadii dawladda u daatay, kuwaasoo aad u diidan in Azerbaijan ka adkaatay dalkoodii. Azerbaijan waxaa saaciday dhaqaalahooda oo waa dal 3 jibaar ka qanisan Armenia, waana sababtay Ruushka iyo dalal kale aysan si toos ah u mucaaradin. Ilyan Aliyev, madaxweynaha Azerbaijan ayaa yiri Armenia heshiiska iskama galin xabad iyo awood ciidameed ayaa ku qasabtay.